السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان idin xisay aad iyo aad muddo ayaan kala maqnayn. Ku soo dhawaada xalaqadii ugu horeysay sanadka 2018 ee kanaalka Ogaansho. Waxaan rajaynaynaa in aan si ka fiican sidii hore wax u soo gudbin doono. Xalaqada maanta waxaad ku maqli doontaan oo inta badan aan uga hadli doono lacagta doolarka iyo xukunka masiirka ummadaha. Sababta dhabta ee loo riday Saddam Hussein, Qaddafi maxaa loo duqeeyay, Bashaarna loo fiirsanaya, dahabka iyo doolarka, iyo go'aankii madaxweynihii Mareykanka Nixon 1971 iyo faahfaahinno kala duwan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Markii aad maqasho dawlad hebel waa dal madax bannaan, waxaa loola jeedaa ummad leh calan, dhul iyo lacag ayada ay leedahay oo dadkeedu wax ku kala iibsadaan. Doolarka waa lacag adag oo adduunka inta badan ka socoto, waxaana sabab u ah arrimo badan awgeed. laakiin aan halkan ku soo gudbina qiso iyo dhagar dad maskaxle ay ka soo shaqeeyeen oo ka dhigtay doolarka in qiimihiisu weligii u taagnaado lacag caalami ah noqdo. waxaa jira rag 24 saac u fikiraya sidii ay dusha uga istaagi lahaayeen shucuubta sii jeeda ee hurdo, maslaxadoodan u fushan lahaayeen. Soomaalidu wax ku mahmaadaa ninkii seexdo ayuu sicii dibi dhala. inta aanan qisada u galin wax yar taariikhda doolarka waa lacagta rasmiga laga isticmaalo waddanka Mareykanka, waxaana loo soo gaabiyaa USD ama xarafka S. halkii doolar wuxuu u dhigmaa 100 senti. markii ugu horeysay ee la isticmaalo lacagta doolarka la soo saarana waxay ahayd 1792. doolarka wixii ka horeeyay 1971 wuxuu ku xirnaa dahabka, taasoo micnaheedu yahay in doolar kasta oo dowladda Mareykanka daabacdo uu jiro qiimo dahab oo u dhigmo oo yaallo xarumaha kaydka bangiga federaalka dhexe Mareykanka. laakiin Mareykanka xilligaas waa bilowgii 70meeyadii iyo wixii 60maadkii u dhaxeeyay. dagaalkii Fiidneen ayuu balaayin doolar ku khasaare aad u foolxun. waxaa macquul noqon weyda in la helo dahab u dhigmo trilyoonadka lacagta la daabacaya ee doolarka. laakiin maxaa xigay arrinkaas? 1971 madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Nixon ayaa ku dhawaaqay in doolarka laga furay dahabka, taasoo ah in doolarka la iska daabici karo ayadoo la fiirinaynin qiimaha dahabka ee yaallo. haddaba caalamka si loo dejiyo, Nixon wuxuu yidhi si ku meel gaar ah ayaan doolarka uga furnay dahabka, waana ku soo celin doonaa. dabcan waxaa bilaaban lahaa in shucuubta caalamka oo dhan ay joojiyaan tacaamulka la tacaamulayaan doolarka iyo in ay ku xiraan lacagahooda, taasoo ka dhignayd in doolarku qiimo beelo, awoodda Mareykankana dhulka gasho. laakiin saan soo sheegnay waxaa jira cuquul shaqaynayso saacad walba oo maskaxdooda miiraaya si ay uga faa'iidaystaan shucuubta hurdo. haddaba Mareykanku si lama filaan ah ayuu ugu dhawaaqay kor u qaadidda qiimaha shidaalka. dabcan arrin ayuu damacsanaa Mareykanka, kor u qaadidda qiimaha shidaalka. dowladaha shidaalka soo saaro intooda badan ah Carab ayaa kadib dhagar adag waxaa laga dhaadhiciyey in shidaalka iyo doolarka la isku xiro, in shidaalka lagu iibsan kara keliya doolar. Mareykankuna uu ballan qaadayo in ciidamo ilaaliya waddamadaas la geeyo, cid ridi kartana ay jireen boqorrada khaliijka. adigaan hadda daawanaya muuqaalkan, haddii aad Sacuudiga ka dalbato dhowr fuusto oo shidaal ah waa in aad doolar uga iibsataa, wax kaloo laga aqbalaya ma lahan. haddaba doolarka markii shidaalka lagu xiray waxaa batay dalbitaanka la dalbanayo, taasoo qiimo u yeelayso doolarka. ummad kastana ay ku qasban tahay in doolarka ay ku xiraan lacagtooda maadaama shidaalka iyo ganacsiga adduunka doolarka lagu iibsanayo. maadaama shidaalka iyo doolarka la isku xiray, horey ayaa loo yidhi mar kasta uu dalabku bato waxaa kor u kaca qiimaha. waddanka Shiinaha haddii uu shidaal malaayiin fuuste ka dalbado Sacuudiga ama waddamada shidaalka soo saara, wuxuu ku qasban yahay in uu doolar siisto shidaalkaas. doolarkana waxaa haya Mareykanka, halkaasay ka imaaday kelmadda petrodollar, doolar iyo batrool isku xiray. laakiin hal nin ayaa diiday in doolarka shidaalka uu dhaafsado, masiirkiisuna wuxuu noqday in la marjiyo. waa Saddam Hussein. saxaafadda iyo dadka caadiga ah waxaa loo sheegaa inta badan in Saddam loo riday haysashada hubka wax burburiyo, laakiin arrinku sidaas waxaad mooddaa inuu ka duwan yahay. sanadkii 2000 Saddam wuxuu go'aansaday in shidaalka Ciraaq la dhaafsan kara keliya lacagta yuurooga oo xilligaas cusbayd. 1999 ayay waddamada midowga Yurub isku raaceen lacagta yuurooga oo ah lacagta labaad ee adduunka maanta ugu muhiimsan
dhinaca ganacsiga caalamiga waxaana maamul lacagta yuurooga bangiga dhexe ee Yurub ee ku yaalo Frankfurt Jarmalka Saddam go'aankiisii muddo yar kadib waa tii dhulka lala jaray dalkiisina la burburiyey dadkiisina la gumaaday waana sababta loo riday Saddam Hussein haddii loo riday Saddam inuu hub sun ah mar adeegsaday iyo inuu samaysanayay waxaa la ridi lahaa Bashar al-Assad oo boqolaal jeer adeegsaday hubka kiimikaalka xasuuqayna kumanaan shacab qaramada midoobay iyo meel kastana ay joogaan ergada Bashar al-Assad iyo nidaamkiisa shalaydan qoyan kowda bishaan hadda aan ku jirno magaalada Douma ee quudada bari ee Suuriya waxaa lagu garaacay 3 gantaalo afka hore ku wata gaaska kaloorka ee sunta waxaana duqeeyay ciidanka Bashar al-Assad caalamkan uu fiirsanaya arrinkaas marka ma kula tahay in Saddam loo riday inuu adeegsaday hubka sunta arrinku uu cad yahay waxaa jira nin kale oo asagana ku fikiray inuu xulafo dawladaha sameeyo kadibna lacag u gooni ah samaysto si shidaalka loogu bedelo waa Qadaafi sax weeyo inuu ahaa kaliya taliye iyo in shacabka Liibiya si iskiisa ugu kacay kacdoonkii 17 February 2011 laakiin waxaa arrinkaas ka faa'iideystay oo hirka wax ka fuulay gaashaanbuurta NATO oo Mareykanka matalayo waxaana la duqeeyay Muammar al-Qadaafi waxay sheegaan in shacabka Liibiya ay garab istaagayeen laakiin waa marmarsiyo haddii ay naxariis leeyihiin waxay wax ka qaban lahaayeen kumanaanka Suuriya lagu xasuuqayo iyo Falastiin waxay kaloo joojin lahaayeen xasuuqa ka socda Boorma dadka muslimiinta ee la xasuuqayo Liibiyaanku waa muslimiin Boormaankuna waa muslimiin Qadaafi malaayiin lacag ayuu ku bixin jiray wadamo Afrikaana si uu u soo jiito una sameeyo lacag dahab ah oo dhulka la jari lahayd doolarka laakiin asaga ayaa dhulka la jaray haddaba dalkeena Soomaaliya waa dal xaalad adag ay ka jirto oo dhaqaale ahaan liito dagaalada iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya darteed lacagta doolarka ahna waxaa loogu talagalay Mareykan iyo ummado dhaqaale xooggan leh haddii aan dib u yara laabano 10 sano ee u dambeeyay waxaad arkaysaa in mar kasta oo dadku si weyn u isticmaalaan doolarka oo dhimanaya qiimaha shilin Soomaaliga sicir bararkana kor u sii kacayo dawladdii dhexe markay dhacday waxaa burburay qiimaha lacagta shilin Soomaaliga waxa ugu dambeeyay 500 iyo 1000 shilin ee hadda la isticmaalay si dhimanaya ama dhintayba dhinaca kale Itoobiyaanka way mamnuuceen in dadka caadiga doolarka wax ku kala iibsadaan oo sidaan ka warqabno doolarka waa ka kontrabaan ahaan Itoobiya sababtoo ah waxay og yihiin mashaakilka iyo musiibada ka dhalan karto haddii dadka doolarka isticmaalaan sicir barar lacagtooda oo dhimato sidaas darteed doolarka waa ka mamnuuc qofka Soomaaliga ee Mareykanka ku sugan markii uu $100 u soo diray ehelkiisa wuxuu og yahay in boqolkaas qiimo ka leedahay Soomaaliya laakiin qiimo weyn ay ka lahayn Mareykanka oo ay tahay qada kaliya laakiin maanta Soomaaliya boqolkii dollar waxay la mid tahay ama u dhowdahay qiimaha Mareykanka ay ka joogto mar aanan fogeyn $50 ama $100 ayaa qoysas badan lagu biili jiray laakiin maanta waa qada waxaanan dhaafsiisnayn waana arrin aad u xun sicir bararka qaaliga waxaa sabab u ah doolarka ummadda gubay dadka Mareykanka joogo ee eheladooda soo biilayo mar dhow waxay ku qasbanaan doonaan in ay $500 ama $1000 ugu yaraan soo diraan arrinkaas oo ayagana dhibaato weyn ku keeni doono in qofku uu garan waayo wax uu diro iyo wax uu asaga isticmaalo maadaama qiimihii doolarka Mareykanka iyo Soomaaliya isku wax lagu iibsanayo bal musiibadaas ka waran wax kasta ummadan maanta waxa ugu muhiimsan markii laga soo tagay kaliya hawada ay neefsanayaan oksijiinka aan neefsanayn kaliya ayaa ka muhiimsan waa in doolarka laga soo gaaro loona sameeyo lacag Soomaali qofkii caadiga ah ee doolar wax ku iibsanayana loo arko inuu yahay cadow naxariis daran dambi qaran lagu soo oogo arrinka aadka u sii naxdinta badan ayaa ah in lacagta birta Itoobiya laga adeegsado meelo Soomaaliya ka mid ah gobolada dhexe gaar ahaan hadda ma hubo in weli laga isticmaalo haddii aad dhegaysanayso muuqaalkan oo aad gobolada dhexe ka imaaday ama joogto fadlan arrinkaas noo xaqiiji laakiin mar aanan fogeyn waxaa si rasmi ah looga isticmaali jiray lacagta birta Itoobiya gaar ahaan magaalooyinka Cabudwaaq Guriceel Dhuusamareeb daan qaldanayn heer waxaan maraynaa aan lacagtii Itoobiya qiimo weyn u yeelno
ummaddan xaggay u socotaa. haddaba askari la tababaro, xeero la dhiso, xiriir dowladeed iyo wasiire la magacaabo, waxaa ummaddan ugu muhiimsan in ay helaan lacag Soomaali shaqaynayso, lagana tago kunkii Soomaaliga ee hore, lacag cusubna la sameeyo sida Zimbabwe ay samaysay oo kale. waddanka Zimbabwe ee ku yaala koonfurta qaaradda Afrika sanado yar ka hor waxaa ka dhacay sicir barar dhinaca lacagta oo aanan abid dunida hore loogu arag. waxaa dhintay qiimaha lacagta Zimbabwe heer la soo saaray $100 trilyan Zimbabwe oo hal warqad ah, xaanjana aanan goynin. sida idiin muuqato, $100 trilyan Zimbabwe 2008 ilaa 2009 meelahaas qiyaastii. halkii senti ee dollar Maraykan ah waa 1 senti, waxaa lagu sarrifayay $500 bilyan Zimbabwe ah. bal ka waran arrinkaas. laakiin hal mar ayaa la kansalay lacagtii, waa la joojiyey, lacag kale ayayna bilaabeen. xilligii muslimiintii hore, Cumar ibn al-Khattab markii uu fidiyey dowladdii Islaamka dhul badanna furtay, wuxuu ku fikiray in ummaddu yeelato lacag u gooni ah. xilliyadaas muslimiinta ma lahayn lacag u gooni ah, waxayna isticmaali jireen diinaarka Byzantiinta Rome iyo diinaarka Furus Bershiya. laakiin Cumar ibn al-Khattab wax weyn kama bedelin. wuxuu amray in sawirrada boqorrada Byzantiinta iyo Furus lagu bedelo kelmado tawxiid ah iyo oraaha islaamiya. laakiin xilligii Umayyiinta gaar ahaan Cabdilmalik bin Marwan markii ugu horreysay ayay muslimiintu samaysteen lacag u gooni ah, diinaarka dahabiga. wax yar dhegta ii soo dhawee. markii ay muslimiintu bilaabeen inay lacag samaystaan diinaarka dahabiga, waxaa aad uga carooday Justinian oo ahaa imbaraatorka dowladdii Byzantiinta. wuxuu ogaa qiimaha in ummad lacag samaysato iyo ummaddii aanan lacag lahayn ay noqonayso mid raacsan dhaqaale ahaan dad kale, go'aankeedana dad kale gacantiis ku jiro. dagaal ayaa qarxay, waxaana burburay heshiis muslimiinta ee Byzantiinta u dhexeeyey, waxaana sabab u ah carada Byzantiinta ay sameeyeen kadib markii muslimiinta ay ku fakareen in lacag samaystaan. laakiin xilligaas muslimiinta awood ayay lahaayeen oo Byzantiinta waa la edbiyey.